الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maantay oo ah maalin isniin ah 13 Juun 2022 waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8aad oo kaasoo ka furmay guud ahaan dugsiyada gobolka Banaadir. imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa asaguna xigi doona oo muddadiisana gadaal aan ka soo sheegi doono haddii alla idmo. imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday 299 arday ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1550 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa. waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ama gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacanta ku haya. runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda macallimiinta iyo maamulkaba. muddadii maamulka gobolka Banaadir uu gacanta ku hayay waxbarashada gobolka Banaadir dadaal badan ayaa la sameeyay goobo badan oo iska xirnaa ama aan dhisnayn ayaa dib loo dhisay dib loo furay lana suura geliyay arday aan wax baranaynin inay wax ku bartaan. xaqiiqdii halkii aan rabnay wali lama gaarin oo wax badan ayaa nooga dhiman balse wadadii aan rabnay inaan ku guuleysano oo looga saaro ubadka Soomaaliyeed akhris qoris la'aanta ayaan cagta saarnay. way jiraan caqabado mataqaanaa naga hor istaagay habkii aan rabnay iyo sida dhaqsaha lahayd ee aan rabno inaan ku gaarno. laakiin caqabad kasta oo timaada si isku duubni ah ayaan uga gudubnay. waxaan rajaynayaa inaan tiigsigeenaas ku meel tagno halkii aan hiigsanaynay biidnillaahi alkariim. ardayda Soomaaliyeed gobolka Banaadir maanta imtixaanku uga bilowday waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa ku guuleysta imtixaankaas shahaadiga ah ee fasalka 8aad ee maanta ay u fariisteen. maamulka waxbarashada gaar ahaan agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir iyo hay'adaha kale ee ayaguna u taagan waxbarashada oo ay kow ka tahay wasaaradda waxbarashada federaalka ah waxaan uga mahad celinaynaa dhammaantood sida isku duubnida leh wada shaqaynta leh hufnaanta leh oo ay ugu duubteen uguna guntadeen suuragelinta iyo taabagelinta imtixaankan shahaadiga oo runtii aan fududayn xilligan siyaasadaha kala guurka iyo doorashooyinka iyo yacni uu dalka ku jiray in mataqaanaa sidaa ugu dhaqsaha badan loo suurageliyay. marka guuleysta dhammaantiin ardayda Soomaaliyeedna inay ku guuleystaan imtixaanka ayaan rajaynaynaa. kuwa hadda imtixaanka ku jira iyo kuwa aan rajaynayno muddo aan fogeyn kadib inay iyaguna imtixaanka geli doonaan. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.